بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج كنا ما أنتوا وحنا كسوق قادنا برنامج كسابسن حق قويسك يو تذكر بالشدة الصومالية ده كان تجن أو عن مكور يسنتو إنه بدين كم إذا جدي ذا تلوداك أيرلاند كترتا وسعيد أحمد يوسف سعيد أحمد يوسف سعيدة كسودو برنامج كيجن مركا واحد نوجا ورنتها بال ururkiina inta la wadaag ee maanta qabtay barnaamijkan aad ka u xiisaha leh ee qiimaha leh ee lagu tago aad u keenteen ninkan professorka ah ee coaching life ka sameeyay bal barnaamijka iyo ururkiina sidoo ku bilaabmay iyo sida iyo barnaamijka aad u qabateen bal warbixin naga sii guud ma sha Allah thank you walaal aad baad u mahadsantahay jazakumullah khayr waxaan kan ka soo bilaabo aasaaskii waxaan asaasnay 2015 bishii October ma sha Allah waxaan low base baan ka soo bilownay oo ah inaan anaga hooyooyinka iska bilowno oo fikrad ah wareedahay si la isku arki karaa oo hooyo walba ilmay ceyrsanaysaa gurigiiba ku jirtaa waagiba guriga ugu bariya gabalkiiba ugu dhacaya wadankaana de wala kala fafugyo ila iskima soo horjeedo ma sha Allah markaan haye war waxa la isku arki karaa hadaan ka waran saddexdii wiigba ama afartii bishiiba hal habeenka jimcaha maanta marka jimcaha caawa kore Friday night-ka aynu ilmaha markaan siixin ilaa hooyooyin baan nahay aanu isugu imaanay abaayooyinka guryahooda guri kamida waanu sameynay alxamdulillah gurigayga lagu bilaabay ma sha Allah waa isu imaanay waan sheekaysanay in ku horeeyay waanu isfahanay ma sha Allah anaga faraxsan baan kala tagnay saddex wiig kadib abaaya kale gurigeedan ku qabanay sidoo kale waxyaabo badan baan ku wada hadalay oo aanan qaybtood aanan bawriga aanan maqal qof jiran wareeda qof ee dhakhtar buu ku jira ilaa dadku qofba meel buu ogyahay ma ogtahay wala kala duwan wareeda hay gurigaas dumay wareeda gurigaas dumay oo dad la hadlana ma laha dadka kala dhex gala waxyaabo badan isku keenay okay wareeda imaanshaha iyagu ma sha Allah faa'iido weyn inta ku jirtay waxyaabo badan oo aanan ogeyn baana ma dhexdeena ka ogaanay kalsoonina way keenaysaa marka dadku laba jeer saddex jeer la isla fadhiisto waad iska baranaysaan intii hore waad iskaga soo dhawaanaysaa qofka walaalka arintii waanu wadnay wareedahay amaanuba waa sii wadnay adigu markaan mareynay meelahaas yeer baanu waxaan sameynay sanad guuro ma sha Allah 2016kii bishii October sanad guuraan sameynay groupkayga magaca markaas oo bixinay habeena isku imaanay hay waxaan ka wada sheekaysanay maxaa noo qabsoonay waxaan noo qabsoomay koow feersi kalsooni dadka haday isku kalsoonaan oo aysan isfahmin ma wada janqaadi karaan ma sha Allah waan isfahanay habeenkaas aanu dhigayno sanad guuradayada waxaan ahayn been hadan iska dhawr 8 baan ahayn waxaan 8 baan ahayn ma sha Allah 8deedu isku kalsoonahay habeenkaas aan check samaysanay waxaan soo samaysanay ku soo guulaysanay waxa ay tahay faarumo waxaan ku guulaysanay waxa ay tahay inaan horta bal aan anagu maskaxdayadii ma sha Allah aaminay isku kalsoonaanay isbaranay taas goolkaas ka gaarnay Soomaa okay maxaan ku darsanaa okay marka imika barnaamij balaaran baad maanta qabateen bal ka waran qabanqaabadeeda iyo qabashadeeda barnaamijkan maanta xiisaha leh dad badan ka soo qayb galeen sad warka bal faafinaga siiyo sad ku qabateen ma sha Allah waxaan ku qabanay saan ku sheegayay gabdhi abaayooyin markay u soo wareejiyeen oo ay dhaheen idinka walaalayaal oo group ah bal isku daya saan ku sheegay meeting baan qabsanay wareeday maxaan awoodnaa okay waxaan awoodnaa inaan wax walba mar baa la qabtaa mar baan isku tijaabiyaa ilaahay aan tala saarno aanu sidii ugu fudud oo ugu ugu dhaqsaha badan aan hawsha u qaban haye maxay tahay waxa ay tahay inaan horta dadkii aanu seebaan dadka Soomaaliyeed uga soo qayb galin karnaa ilaa ninka wuxuu yiri Soomaalida Ireland la Dublin kaliya Ireland baa faa'iideynaya see ku gaarsiin karnaa arintan waxaan Soomaalida ku gaarsiin karnaa inaan kaaran qaybino kaaran u soo sameeyno ka sheegaya ninkan waxa uu yahay ilaa dadka taa isku yeedid xaqaad ugu yeeraysaa meesha lagu qalamiyaad ugu yeeraysaa may oga moogta waa inaa u sheegtid war waxaan idinku yeeraya okay haye kaar ka tarjumaya ninka waxa uu yahay iyo waxa uu fiican yahay baan soo sameeynay hadana waa ku tusaynaa kaarka kadibna hawsha baan ku dhaqaaqnay kaarkii baan sameeynay kaarkii markaan sameeyay ilaahay waa nagu guuleystay si qurux badan baan u qornay wiilalna caawiyeen way jiraan khayr Allah siiyo nala sameeyay oo odagaya kamid ah hataa
qoraalka nagala qayb qaatay ما شاء الله كدبنا waxaan isku daynay aan haye waxaan sameynaa aan dadkii aan dhahno haye dadkii masaajid dad badan baan runtii filaynay aan dadkii meel ku kureeyay official aan ka arintan official ka okay meel baan iskireynay waa hotelka meeshaan aan kireynay hawlka ah alxamdulillah waxaan ugu qaadatay wallahi wax yara wayna fududaatay waan kala gogosanay adigu waxa ku aadaa tala wadaag waxaan u nahay taladan wadaagnay waa la kala qaybsaday jeebkayaan ka bilownay adigu tigidhka go adiguna hawlka soo qabo adigu speakerada soo qabo adigu kaarkii bannerka samee inta markaan keenay gabdhihii kalena waxay sameeyeen inay qaadaan oo ay dadka gaarsiiyaan khayr Allah siiyo oo ay guryahoodii ilmahoodii jaanis ay ka maxaan ku sheegaa waqti masiyaan gawaaridooda qaataan oo ilaa dandoq ilaa barbarigan aan gaarsiino alxamdulillah iyo dablanba waan ku guuleysanay alxamdulillah coachkina waa noo imaaday farxadeyda ma soo koobi kara aad baan faraxsanaa dadkuna way ku qanacsan yihiin alxamdulillah marka barnaamijkana su'aasha u dambaysa maxaad ka filaysaa dadka kale organizationkiina inay ilmo lagu soo biiri karaa maxaad kula talinaysaa dadka kale aan ku jirin barnaamijyada xiisaha aad wadaan aad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa walaalahay waxaan la jecelahay wax kasta wanaaga waxaan aan wadnana caruurtayadan ka bilaabaynaa waxaan la jecelahay dadaalkan aan wadno special ciyaalka iyo dadka Soomaaliyeed in isku soo dhaweyno isdhexgalka bulshada ka shaqeynayna oo dadku ay is aaminaan oo wax la wada qabsan karo hadii la isku dayo ma sha Allah ilmaha yaga anagu seef garaysanayna oo ka soo dhixsaarayna caruuraha ku dhex jiraan ina awood yeelan karno hadaan xataa dumarna aan action qaadi karno oo aan seef garaysan karno nolosha caruurteeda soo kacay iyo kuwa yaga aas dumar ragga yagana waan ku inkaro jireen inta nala wadanayo inaatayeen inta kalena waxaan jecelahay inay wada soo biiraan aad baan u soo dhaweynaynaa waana u baahanaa waana xiiseynaynaa waana diyaar baan u nahay xilli kasta waxa ay rabaan inaan u sameeyno insha Allah mid ka weyn aan balan gareynayna insha Allah waa aad baan kaaga mahadcelinayaa Saciida Axmed Yuusuf thank you waad mahadsantahay thank you barnaamijkeena intaas aynu ku soo koobaynaa assalaamu calaykum